tusayaa exercise ugu muhiimsan oo qofka beginnerka u baahan yahay. Waxaan ka bilaabeynaa bench press oo xabadka loogu talagalay. Muhiimadda qaabka oo loo sameynayo waa mar walba garbaha hoos u eeg xabadka soo bixi. عشان waxaa lagu talagalay dadka bilowga ah oo gymka markaas uu bilow ku yahay ama markaas ku soo biiray qaadista macalinka sameynayo qaabka uu sameynayo oo jeeda kor oo kiilooyinka toban adeeg ku xiran tahay qaabka qofka markuu yar yahay ama bilow yahay 10 kiilo ma qaadi karo 10 ma qaadi karo. exercise kan waxaa la dhahaa bench press xabadka loogu talagalay. Hadda weight yar aan ku sameynayo laakiin waxaa idin tusayaa qaabka loo sameynayo. Muhiimadda waxaa waaye xabadka soo bixi garbaha hoos u dhig saas xabadka adiga muhiimad saaraay. Okay, exercise ka labaad idin tusayo waxaa waaye shoulder press machine ka sayan tagayna. fadlan waxaan bilaabeynaa YouTube kan mar dhow ayaa la bilaabi doonaa ama uu bilow yahay. Haddaad ku cusub tahay rukumo subscribe saar kuna soo biir saaxiibadana u sheeg. haddii aad daawan jirteen macallin ajnabi ah ama qof ajnabi ah oo aan fahmaynin luqadiisa iyo qaabka uu sharxayo, hadda waxaa haystaa macallin Soomaali ah ama qof Soomaali ah oo kuu sharxaya. sidoo kale waxaa bixin doonaa waxyaabo badan oo la xiriira gymka hay. Hadda waxaan idin tusayaa shoulder press exercise loo yaqaano oo exercise ugu fiican ee shoulders aad ku dhisaan ama garbaha. Sidan waaweynka ayuu u baahan yahay qofka markuu bilow yahay. waxaa aragtaa qofka inuu maalin wuxuu dhahaa chest day xabadu sameynaa biri gacmo sameynaa maalin kale baago sameynaa. waxaas waxaa loogu talagalay qofka markuu dhismo kadib oo advanced ka noqdo. laakiin beginner markaa tahay waxaa u baahan tahay exercise waaweyn ee murqaha badan sameynaya. Okay, shoulder press aan sameynaa la fiiriyo. waxaa waaye inaad istaagto adiga istaag dhabarkaagii dhaqaaqin kor hoos kor markaad hoos soo dhigaysid tartiib boobsiin tartiib ujeeda garbaha shaqeynayaan. kor wanaagsan هذا يستاجسها. Okay, exercise كنا حالا shoulder press. ويران weight ugu filan gasho. Hadda aniga weight yar aan sameynaa idinka idin tusayay. 3 sets oo 8 ilaa 10 ilaa 12 u dhaxayso. Saddex wareeg ka samee oo wareegiiba 8 ilaa 12 ay u dhaxayso tirada. Waa si fiican gasho. Okay. Marka xiga waxaan idin tusayaa exercise bag muhiim u ah oo asagana loo yaqaano barbell row. Birtan ayaan ku sameynayaa. barbell row wuxuu aad u dhisaa baaga. markii aad soo qabanaysid waxaa muhiim ah dhabarkaaga inuu saan ahaado. oo spine inay wax kaa gaaraan looma baahno. Okay, dhabarka bixi. Wajabso dhabarkaaga ha taagnaado. soo qabso. meeshaan. back down. exercise waxaa la yidhaahaa barbell row. wuxuu aad ugu fiican yahay baaga laatiska baaga kore intaba uu saameynayaa. muhiimadda waxaa waaye inuu dhabarkaaga uu toosan yahay. spine-kaaga sidaas iyo ahaan marnaba iyo dhaawac gaarin. Okay, exercise-ka afraad oo aan tusayo waxaa loo yaqaanaa isagana deadlift. wuxuu saameeyaa lower back aad u saameeyaa. sidoo kale cajiradana uu saameynaya. Okay, si la mid ah barbell row markaad soo qabanaysid dhabarkaaga mar walba waa inuu toosnaadaa. Sola. Tapi spine halal. Okay. Sola. Sola. Okay.
exercise-kaas isagana waxaa la yidhaahaa deadlift sida taqaanid aad muhiim u yahay isagana dhabarka hoose cajirada glutiska ama murqaha dabada inta wuu saameynayaa muhiimadda waxaa waaye walaas fiican gasho hadda weyd yar aan ku sameynaya adinka idin tusay okay next exercise aan idin tusaya waxaa waaye exercise isagana lugaha aad muhiim ugu ah oo loo yaqaano squat oo cajirada aad u dhisa birtan ayaa ka saaranaya exercise-kan aan sameynayo waxaa loo yaqaanaa barbell back squat muhiimadda waxaa waaye markii aad sameynaysid maahan hoos iyo kor inaad fadhiiso okay waa soo qaadatay hips backwards backwards forwards yani gadaalaad u dhexaysaa markaa hoos gaarto ama baarka waa soo laabanaya tan okay exercise-kaasna waxaa loo yaqaanaa barbell back squat waa asagana aad muhiim uga ereyadana isticmaalayno bench press barbell squat and barbell rope waxaasna waa exercise-yada magacyada loo yaqaano asal ahaan bodybuilding-ka English Mareykanku ka imaaday saas luqad kastana ereyadaas ayaa loo adeegsadaa waa ereyo kuma aad loo isticmaalo hadda waxaan idin tusayaa exercise oo asagana aad u isticmaali kartid muruqan dab exercise-keena xiga waxaan sameynaynaa easy bar tricep extension exercise easy bar horta iska qaloocanaya loo yaqaana waxaan sameynaynaa tricepska muruqa dambe ayaan xoog saarayna marka waxaan u baahanahay kursigan ayaan ubaahanahay jirtaas soo istaagto maadaama jiifanayo exercise-kan waxaa weeyaan tricepka muhiimadda waxay tahay inta markaa keeno tricepka walaas ma saarno inta inaa geysid waa saar okay hoos gey meel kale aan noqday farka hoos gey farka hoos control wuu kaa faqan weydka marnaba okay haddii aad ku cusub tahay gymka oo beginner tahay exercise-yadan ayaad u baahan tahay muhiimadda waxaa waaye qofku markuu gymka cusub yahay markuu u badan inta murqaha ugu badan markaa soo dhisaa waxaa loo yaqaanaa new beginners oo qofku markuu gymka cusub yahay aad ugu korayaa markuu hore ka imaado mala mid aan qof soo dhiganayo kale qof markuu sanado sii dhigto hadba korinshihiisa uu sii yaraanaya decline uu sameynaya marka waxaa muhiima marka si aad uga faa'iidaysatid taa inaad xoogga saartid exercise-yada murqaha badan saameynaya si aad waqti fiican wax badan u dhistid laakiin adigoo bilaaba haddaad gymka imaato oo just maalin samaysid xabad samaysid maalin baag samaysid maalin kale luga samaysid maalin gacmo waqtigaa kaa dhamaayo sidoo kale waxaa u baahan tahay maalin walba ma tegaysid gymka markaad beginner tahay 3 times a week or maximum 4 times a week exercise-yada compound exercise loo yaqaan ama exercise-yada waaweyn loo yaqaana xoogga saare kuwaan idinku soo kala ahaa bench press deadlift barbell rope barbell curls oo loogu talagalay murqaha hore bicep exercise ugu muhiimsan bicepka aad samayn kartid waa barbell curls oo halkii aan guda galno you can also lift heavy with it
قال هذا أنا ماضي 10 كينا أنا ماضي هذا عم بحينا من كينا قربنا سيستم كان أنا كان سيستم كوكو بحو أنا كان بيقول نقص ضوء أنا سيستم كان كوكو بحو أنا شاف أنا كمان أيارته for 6 days waxaan jiimka waynoo maalin kale dambo xiisa leh magay gurigeena ku laawanayna subscribe gareeya channel hala kala kiciyo channelkan waxa waa channelka ugu horeeyay oo Soomaali uu jira laakiin waxaan rajaynaynaa inaan aqoon ku ugu fiican ee soo gudbiyo jirdhis Soomaalidana waxay daawataa dad ajaanib ah oo aysan fahmaynin waxa ay sheegayaan balse qof Soomaali ah inuu ku sharax karo isbaan kana marayna biima dhaho aan gadabna cunto gadanayna chicken gadanayna bye bye asxaab